wuxuu ahaa mid ka mid ah hogaamiyaashii ugu geysisnaa dowladdii Salaajaqada, sidoo kalena dibadda u taagay xukun lagu tiray inuu ahaa kii ugu awoodda badnaa ee soo maray mandiqadda. Sultan Tuğrul Bey yeğeni, Horasan hakimi, bileği bükülmez Çağrı Beyoğlu, Muhammed Alparslan. Hogaamiye magaciisa oo kaliya uu ku filnaa si uu argagax iyo cabsi ugu reebo qalbiyada ciidamadii saraakiishii ee Basandiiniyiinta ahayd. waxaynu jeednaa hogaamiye oran jiray Alab Arsalan, hogaamiye la wareegay maamulka sadanad ku fadhiday dhul yar, sanooyin gudahoodna u bedelay quwaddii islaam ee ugu xooganayd xilligaasi. xitaa uu dhahaan iyo sanad ahaanba waxay ka saameyn badneed khilaafadii Cabbaasiyiinta oo xilligaasi xukumaysay caalamka islaamka oo idil. magacaygu waa Diino Xuseen Shacab, halkani waa kanalka iftiinka. ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta. intayna ka hadlin taariikhda Alab Arsalan, marka hore aynu soo dul istaagno taariikhdii dowladdii Salaajaqada ee uu ka tirsanaa Alab Arsalan. dowladdii Salaajaqada ayaa waxaa yagleelay qabiil la oran jiray Qaynuug oo ka tirsanaa qabaa'il loo yaqaanay Oos, oo ahaa qabiil ay Turkidu asal ahaan ku abtirsadaan. qabiilkan ayaa soo galay diinta islaamka sanadkii 960 miilaadiga, waxaana la oran jiray ninkii hogaaminayay xilligaasi Saljuuq bin Duqaaq. magaca ninkan waa meesha uu ka yimid magaca dowladda loo yaqaanay ee ahaa Salaajaqada. Salaajaqada ayaa ku guulaystay inay ka yagleelaan dowlad nidaam leh oo aad u adag. Khuraasaan iyo qayb ka mid ah bartamaha Aasiya, gaar ahaan dalalka Uzbekistan, Kazakhstan iyo Kazakhstan. xawaarahan sare ay dowladdu isku fidinaysay ayaa ka dhigtay mid ka mid ah dowladaha miisaanka ku leh mandiqada bariga dhexe, oo ay xilligaasi meel ay ku hardamayeen boqortooyin kumanaan sano soo jiray oo ay ugu horeysay boqortooyadii Bisandiiniyiinta. dowladdii Salaajaqada ayaa shaacisay inay yihiin dowlad hoos tagtay khilaafadii muslimiinta, hogaaminaysay xilligaasi oo ahayd khilaafadii Cabbaasiyiinta. xukunkii Salaajaqada waxaa la wareegay suldaan la oran jiray Tukrul Beeg. suldaankan ayaa awood u yeeshay inuu sii siyaadiyo awooddii iyo haybaddii ay lahayd dowladdii Salaajaqadu. wuxuu furtay deegaano hor leh oo ay ka mid ahaayeen dalalka Iiraan iyo Ciraaq, waxaana wixii ka dambeeyey 447 u bilowday khilaafadii Cabbaasiyiinta, casri cusub oo ay noqotay khilaafadaasi mid aan awood badan lahayn, awoodda badankeedana ay gacanta ku hayeen salaadiintii Salaajaqadu. Tukrul Beeg wuxuu leeliyay dowladdii Salaajaqada, awoodna u yeeshay inuu sii kordhiyo dalalka uu furnayo. ayuu ugu dambeyn geeriyooday sanadkii 455 hijriya. Tukrul kama tegin dhaxal sugu bedela oo ma lahayn wiil uu dhalay, oo xilligaasi xukunku waa mid ay kala dhaxalayeen aabbaha iyo wiilkiisu, iyadoo loo doorayo xukunka kan ugu muqdarsan oo ka soo bixi kara. maadaama uusan ka tegin Tukrul Beeg dhaxal sugu bedela, waxaa hortay khilaaf iyo colaad soo kala dhex gashay carruurtii uu adeerku u ahaa iyo wasiiradii ugu awoodda badnaa dowladdiisa. laakiin ugu dambeyn waxaa awood u yeeshay inuu xukunka qabto Alab Arsalan oo adeer u ahaa Tukrul Beeg. sooyaalkii geesnimadii Alab Arsalan ayaa door weyn ka ciyaartay in loo doorto inuu noqdo suldaanka bedelaya adeerkii. wuxuu ahaa hogaamiye leh xis hogaamineed iyo dagaalyahan aan lagu babacdhigi karin saaxadaha dagaalka. geesnimada uu kala simnaa walaalkii Suleymaan oo ay xukunka ku loolameen, laakiin Alab Arsalan ayaa kaga dugnaa walaalkii Suleymaan inuu lahaa awood hogaamineed iyo mid diblomaasiyadeed oo ku maamuli karo saldanadii uu adeerkii dhibada u sii taagay. sidoo kale Alab Arsalan ayaa ku noolaa deegaanka Khuraasaan oo aabihii la oran jiray Tariq Beeg maamuli jiray, taasoo ka dhigtay mid xilli hore oo noloshiisa ahba awood u yeeshay hogaaminta ciidamadii aabihii. markii uu dhintay aabihiina wuxuu noqday amiirkii Khuraasaan ka hor intaan loo dooran hogaamintii dowladdii Salaajaqada. bilowgii ugu horeeyay xukunkiisa Alab Arsalan kama uusan magan helin khilaafaad iyo kacdoono, ha ahaadaan kuwa ay abaabuleen guddoomiyaashii deegaanada hoos tegi jiray Salaajaqada iyo xitaa qayb ka mid ah amiiradii Salaajaqada oo aan ku qanacsanayn xukunka Alab Arsalan, iskuna arkay in iyagu mudnaayeen xukunka. laakiin Alab Arsalan ayaa awood u yeeshay inuu dhammaan dimiyo dabkii fidnooyinka ee ka holacayay saldanadiisa. ilaa sanadkii 463 miilaadiga
oo ay noqotay dowladdii salaajaqada dowladdii ugu baaxadda weyneed uguna awoodda badneed caalamka islaamka oo idil. kadib markii uu ka guulaystay khilaafaadkii iyo amardiidooyinkii gudaha dhammaan gobolladii hoos imaanayay uu ka sifeeyey hogaamiyaashii fidnada iyo kala taga abuurayay. Albarslan ayaa u jihaystay sidii u soo furin lahaa deegaano iyo gobollo cusub una gaarsiin lahaa, wuxuuna diyaarsaday ku dhowaad 40,000 oo dagaalyahan, wuxuuna muddo kooban gudaheed awood u yeeshay inuu furto dalalka Armenia iyo Georgia. qaysarkii boqortooyadii Byzantiniyiinta ee la oran jiray Roman Diogen ayaa garowsaday in salaajaqadu haddii ay sidan ku sii socdaan ay la wareegi doonaan dhulalkiisa, wuxuuna diyaarsaday ciidan aad u tiriyay saanad badan, wuxuuna sanadkii 463 hijriga u soo socdaalay dhanka salaajaqada si uu go'doon u geliyo, wuxuuna la wareegay magaalada Xalab ee haatan ka tirsan dalka Syria. laakiin Albarslan ayaana ka aamusin duulaankan, wuxuuna iminkiisa la oran jiray Malik Shah oo u diray sidii dib u soo furan lahaa magaalada Xalab. Malik Shah wuxuu ka guulaystay inuu dib gacanta uga dhigo magaalada Xalab, laakiin kuma joogsan Xalab, balse wuxuu ka sii talaabay dhinaca Shaam isagoo la soo wareegay dhul hor leh oo ay horey boqortooyada Roman u haysatay. Roman Diogen markuu arkay in lagala wareegay magaaladii muddo ka hor qabsaday, go'aansadayna inuu dagaal iclaamiyo. markan yoolka Diogen ayaa ahaa inuu si toos ula dagaalamo Albarslan. marka la eego waaqaca iyo tirada ciidamada, wuxuu qof walba aaminayay in Roman Diogen uu xaqiijinayo guul aad u baaxad weyn soona ciribtiri doono salaajaqada, maxaa yeelay ciidamada uu hogaaminayo Roman waxay tir ahaan gaarayeen 20,000 oo dagaalyahan, halka Albarslan ciidamadiisu ku dhawaayeen 40,000 oo askari oo keliya. Albarslan ayaa markii hore isku dayay inuu la xaajoodo oo wadahadal la furo Roman Diogen, hase ahaatee Roman ayaa ka diiday. waxay taariikhyahanadu sheegaan in jawaabta Roman ay ahayd wadaxaajoodku wuxuu ka dhici doonaa caasimadaada, oo uu la jeeday in caasimadda salaajaqada marka ay gaaladu la wareegaan kadib ay la hadli doonaan Albarslan. dabcan waxay ku tusinaysaa dhiirinaanta iyo kalsoonida uu Roman Diogen ku qabay inay guusha iyagu yeelan doonaan. laakiin horaa loo yidhi war jiraaca kaaro iman. kadib markuu Albarslan garowsaday inay gaaladu ka go'an tahay inay dagaalamaan, tiribadnidooduna ay kalsooni xad dhaaf ah ku qabaan, ayuu isna go'aansaday inuu dagaal isu diyaariyo. wuxuuna qorsheeyey in maalinta dagaalka lagu beego maalinimada Jimcaha, gaar ahaan xilliga lagu jiro salaada Jimcaha, si muslimiinta adduunka oo dhammi ay ugu wada duceeyaan ciidamada Islaamka. waxaana loo bixiyey dagaalkan dagaalkii Malaad Kurd. Albarslan ayaa ku labistay marac cad, wuxuuna u sheegay ciidamadiisii inay tahay karfantiisa, haddii uu dhintana iyada lagu karfamo. sidoo kale wuxuu u sheegay in haddii uu dhinto inay raacaan oo ay ka amar qaataan inankiisa Malik Shah, wuxuuna u jeediyey khudbad ku beertay ciidankii xamaasad aad u sareysa. kadibna waxaa u bilowday dagaalkii, waxaana u suurto gashay Albarslan inuu duulaan degdeg ah ku qaado aagga hore ee ciidamadii Byzantiniyiinta. duulaankan kadiska ah ayaa ka dhigtay ciidamadii gaalada kuwo kala firxada oo isku dhaxyaac iyo nidaam daro soo dhex gasho. Albarslan oo ka faa'iideysanaya foodadan ayaa iyada uu dagaalka uusan wax badanba socon gacanta ku soo dhiyay oo uu soo qafaashay boqorkii Byzantiniyiinta ee la oran jiray Roman Diogen. wuxuu ahaa boqorkii ugu horeeyay ee gaal ah ee uu soo qafaasho boqor ama hogaamiye muslim ah. qafaalashada boqorkan ayaa kadis ku noqotay xitaa ciidamadii Albarslan oo aan filaynin inay qafaalan doonaan hogaamiye horkacaya 20,000 oo dagaalyahan. markii uu dhammaaday dagaalkii, Albarslan ayaa u soo kaxaysay Roman Diogen caasimadiisii, laakiin wuxuu ahaa Albarslan siyaasi aragti dheer iyo waayo aragnimo leh. wuxuu garowsaday in haddii uu dil Roman Diogen uusan waxba ka faa'iideynin, xilliganna uusan haysan awood xooggan oo ku weerari karo caasimadii Byzantiniyiinta ee Qustantiniya ee haatan ah magaalada Istanbul. sidoo kale wuxuu xisaabta ku darsaday inay dhici karto in ciidamadii gaaray 200,000 ee ku galcaray dagaalkii Malaad Kurd ee lagu soo qafaashay Roman Diogen inay dib u soo urursadaan lana dhiibo hogaankooda la taliye ka xeeldheer kan xeelad wanaagsan Roman Diogen.
kadibna ay dib duulaan ugu soo qaadaan muslimiinta. haddaba si uu dhammaan waxaan uga hortago, Alp Arslan ayaa garowsaday inuu sii daayo Roman Diogen, laakiin sii dayntiisa waxa uu ku xiray madaxa fursho gaaraysa 1.5 milyan lacagta diinaarka loo yaqaano iyo sidoo kalena in la sii daayo dhammaan muslimiinta u xiran Byzantiniyiinta, iyo arrinta ugu muhiimsan oo xabad joojin 50 sano dabcan Roman Diogen wuu yeelay shuruudahan, sidaa ayaana lagu sii daayay. Alp Arslan ayaana sii noolayn muddo dheer, balse sanadkan kadib ayuu u dhintay toorey ama mindi uu geliyay mid ka mid dadkii ka soo horjeeday xukunkiisa, wuxuuna ugu tegay xukunkii dowladdii Salaajaqada inankiisa oo la oran jiray Malikshah. waxaan soo gaarnay gebgabadii muuqaalka. haddii aad ka heshay muuqaalkan, like saar si ina gaarsii saaxiibadaada. haddii aad nagu cusub tahayna inagu soo biir oo rukumo janalka si ay kuu soo gaaraan muuqaalada aan soo gelin mar waliba. intaynu ku kulmi doono kan iyo muuqaalkiis xiga, fi amaanillah, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.